السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض وضعي في الواد برنامج كنا ويأركنا اللي ويه وسوجوي برنامج عاوه مرتنا وقع اللي بان هراء سكرية عبد السوقلة اللي بان سكرية وقيب لحد لك سوقات الدول لسكي دول ديانك الصومالي ذا وحل كل دول كسوقتي كل ياشي كل الدولنا دول ديانك الصومالي ذا وكم ذا أساس ياشي حسب الله سنة كلا بس كم من نقطين اللي بان ذي كل ياش برلمان كهر فترة لدى إثيوبيا وكم من نقطين كديري شوكت ذا أها برلمان كوقتها وحصل نقطة تليه مدحوني عبد الرشيد دولني arrimaha siyaasadda xalinta khilaafaadka xuduudaha iyo isku dhacyada qabiilka xilibaan ku soo dhawo barnaamijka bal marka hore waa kuma Zakariya Cabdi Subagle waan dhawahay Harun Zakariya waa Zakariya Cabdi Usmaan Zakariya Cabdi Subagle kuna dhashay magaalada Jinacsani qabalaha koobaad waxbarashadeedii Quraanka iyo dugsigii hoose ku soo qaatay Jinacsani inta kadib waxbarashadeedii waxaan ka sii watay waqtigii dagaalku dhacay 27kii waxaan u qaxnay magaalada Hargeysa xagga ay Soomaaliya isla kalaaskii aan kaga tagay oo kalaaska shanaad ahaa waqtiga waxaan ka bilownay magaalada Hargeysa iskuulka biyadcayga hoose biyadcayga sare ayaan standard 6kii ku dhamaystay markii hore waraaba salaam baan galay waa standard 5kii markaan ka soo baxay adana dugsigii dhexe waxaan ku dhamaystay biyadcayga sare kadib dugsigii sare waxaan galay dugsiga sare ee Faarax Cumar dugsiga Faarax Cumar anoo markaa form 2 waxa dhacay dhagax tuurkii ufada loorin jiray kadib waxaan u wareegay magaalada Muqdisho marka waxbarashadii dugsiga sare aan ku sii dhamaystay dugsiga sare ee Khawdiin sare kadib waxaan galay jaamacadda kulliyadda culumta siyaasadda digriigii koowaadna political science baan qaatay waxbarashadii saas ahayd kadib waxaan u soo noqonay wadanka wasi wanaagsan Zakariya waxaad noo sheegtaa goorma ayaad siyaasadda soo gashay halkees ka gashay waxaan galay siyaasadda aan ku biiray waqtigii anoo waxbarashadeedu ay siyaasadda ahayd marka horeba 92dii waqtigii aan ku soo noqonay wadanka Ethiopia Addis Ababa ayaan 92dii ayaan siyaasadda galay ururo siyaasadeed waqtiga laga furay dalka EPRDF markii ay soo gashay waxaana ka mid noqday ururkii loorin jiray DUP ayaan ka mid noqday golihiisii dhexe iyo guddigiisii fulinta loorin jiray nin Axmed Cabdikariin loorin jiray gudoomiye nooga ahaa xogayana nooga ahaa Suldaan Cabdilaahi ilka case oo imika suldaanka Surra waqti dhaweydna aan ka arkay Hargeysa isugu jooga xogayaha xisbiga noo ahaa waqtigaasaan kusoo biiray Zakariya egas laban hore waxaa jirta ama doorkii aad ku lahayd xisbigii GDM maxaad noo sheegi kartaa uu jiray xisbiga GDM waxaan ka mid ahaa 5 qof ee aasaastay aniga xubno kale oo daan xusi karo magacoogan ka xasuusi karo Cali Usmaan Cali Nabraale oo ahaa gudoomiyaha xisbiga noo ahaa Daaro Xasan oo xogayaha xisbiga ahaa Maxamed Askar Cabdalle Addis Ababa iyo Maxamed Cabdilaahi Masagaaji oo isaguna reer Gursum ahaa reer Jigjigan ahaa waxaan garanay markii ururada qabaa'ilka la abuuray maadaama qabiilahaan ka soo jeednay GDM jaarso waxaan sameynay inaanu dadka iyagu ku soo ururno iyagoo xisbiye kala duwan oo dhinaca Soomaalidana ka jiray dhinaca Oromadana xisbiyadii ka jiray ay u qaybsanaayeen inaanu xisbiyeeni qabiilahaan soo keenay si aan deegaankeena aan u matalna markaa annagoo jaarsa baanu ku aasaasnay xisbiga GDM markii aan aasaasnayna waxaanu ka qayb qaadanay
oon ka mid noqonay 13 urur ee ku midoobay Huurso Leego ururkii leegada loo oran jiray Cabdimajiid gudoomiyaha nooga asaaskii xisbigii leego doorkii adoo khaasatan ad ku lahayd sakriyahan ama ad ka qabatay xilal ad ka qabatay xisbiga dhexdiisa ama ad ku lahayd ba saameynta leeg bad ku lahayd ama noo sheegi kartaa xaqiiqa way jirtay waxa way xubnihii xisbiyada ku soo biiray saddex xubnood ee presidiumka ayaa loogu yeeray shir Addis-Ababa ee xisbiyada qabaa'ilka markii la ururinayay marka xisbiga GDM anigoo matalaya oo saddexdii xubnood ee matalaysay baan ka qayb galay shirka si markaa Huurso shirweynihii xisbiga loogu qabto qayb weyn baan ka qaatay kadibna golaha iyagii dhexe ee GDM saan u dhanayn iyo dokumentigeeniiba waxaan la tagnay Huurso sidaasaan xisbigii leegada uga mid noqonnay xubnihii marka aasaasay ururada qabaa'ilka presidiumkooga looga yeeray baan ka mid ahaa marka aasaaskii raggii aasaasay baan ka mid ahay baan odhan karaa xildhibaan Sakariye xildhibaan hore xisbigii leego iyo NLF midowgoodii ama qarabkii nabadda qaatay maxaad ka xasuusataa awsa doorkeed ku lahayd waxaan ka xasuustaa horta waqtigaas golo dhexe guddi fulinba leega waan ahaa waxaa jirtay in sidii la rabay kililka wax loo wadi waayay ay u socon waayeen oo caqabadna ay ku noqdeen nimanka oon lafta kuwii annaga nabadda qaatay ee baarlamaanka nugula jiray iyo kuwii duurka galayba way wada shaqaynayeen bil xaqiiqa marka in qorshayaashii nabadeed iyo horumarineed inay socon waayeen ayaa meesha ka soo baxday guddiyaa la sameeyey markaa loo kala diray 9 gobol 9 gobol guddiyadii loo diray guddigii goday loo diray ayaan anigu ka mid ahaa aniga iyo nin Cabdi Raaxal oranayo gudoomiyaha gobolka ahaa iyo nin Xasan Hiibe loo oran jiray oo isaguna guddiga fulinta xisbi xukuumadda ahaa waqtiga golo wasiiro ma inuu guddi fulin wax la yiraahdo ayaa jiray oo 21 xubnooda gobol walba ay dadka matalaan marka xubin guddiga fulinta leegada iyo xubin guddiga fulinta xukuumadda iyo gudoomiyaha gobolka saddexdiinaas anigoo marka xisbiyahan fulinta matalayay ayaa tagnay si markaa loo hagaajiyo qaab dhismeedkii maamulkii ka jiray oo haba yaraatay waqtiga wax hagaagsan oo jiray aanu jirin xataa maysan lahayn arkiibyo oo waxa jiray in qabaa'ilo wasaaradaha loo kala lahaa oo qabiil hebel wasaaradda waxbarashada ama wixii waxbarashada qabiil hebelna wasaaradda caafimaadka oo qaab dhismeed dowladeed oo nidaamsan aanu jirin baanu soo hagaajinaynay xilligaa kadib waxa dhacday in uu noo yimaad wasiirkii gaashaandhigga ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen nin la odhan jiray Tafarawalwa markaa yidhi sidan si ay dadka wax loogu qaban kara maaha maadaama leegana sidii la rabay aanay horumar iyo nabadgelyadiiba aanay sidii la rabay u wadi karin shacabkana waxba la gaadhsiin karin waxaa habboon in ururkii ONLF ee nabadda qaatay ee dowladda qaybta ka ah baarlamaanka ku jiray iyo leego in la mideeyo muddo dood badan kadib markaan ka doodnay maadaama aanay aqlabiyadna lahayn sidii dee loo midoobi lahaa inay adag tahay baa waxaa nala aaminsiiyey nololna sheegay bil xaqiiqaduna ay ahayd waxa naga laftirkaygu aan qaadanay si dadkan wax loogu qabto in bal caqabadani ay yaraato oonu isku dhinac ka noqon maadaama iyaguna dastuurkii iyo nidaamkii sidan anagu u qaadanay dowladdii iyaguna ay u qaateen kuwa kale ee maqan ee duurka galana ay dastuurkaba diidan yihiin iyagoon meen kuwa kale oo elaftan ormada iyaga laftirkooga saasay bannaanka uga baxeen sidii marka in lagu mideeyo ayay noqotay midayntiiba waxay noqotay marka muddo aad u adag anu waqtigaa guddigii fulinta ee dooda ku jiray baan ka mid ahaa waxa ay noqotay in markaa la yidhaah waa kiniin qadhaadh ee liqa
maadaama anagu aan aqlabiyadii baarlamaanka iyo xukuumadda baan lahayn madaxweynaha iyo inta baanu haysanay in aanu sii dayno marka oo ONLF la siiyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga isla markaana madaxweynaha kililka ay qaataan si xal loo helo xisbigii laagana gudoomiyaha xisbiga iyo xogayaha kililka inay qaataan iyo xogayaha xisbiga ayaa lagu dhameeyey ku-xigeenkiina ee xukuumadda waxaa laga dhigay shakhsiyaadkii baarlamaanka ku jiray geliga lagu soo doortay isla markaa madaxweynaha waxaa noqday gudoomiye ku-xigeenka xisbigana noqday khadar macalin oo imikaba nool oo jooga aadan cabdilaahi oo markaa isagu geli lagu soo doortay oo shiniila ka soo jeedayna ku-xigeen ayuu noqday suldaan oo xogayaha xukuumadda noqday oo isaguna leega ka soo jeeday sidii baanu ku kala qaadanay sidaasaana lagu mideeyey waxna ay ku socdeen xisbigiina uu noqday xisbiga shacabka dimuqraadiga soomaalida Itoobiya wasi wanaagsan daawadayaal waxaad naga daawanaysaan Hiral Media xilalkii aad deegaan ka soo qabatay bal maxaad noo sheegi kartaa bismillaah marka hore golayaasha xisbigan ku jiray kasokow waxaan noqday madaxii xafiiska gaadiidka ganacsiga iyo gaadiidka ee gobolka Jigjiga ayaan muddo ku shaqeeyay kadib xilligaa aan ururada midaynay oo madaxweyne Khadar yimid ayaa xilkaa layga qaaday kadib midnimadii xisbiga baa dib waxaa la igu doortay inaan golo dhexe noqdo isla markaana aan guddi fulin xisbi aan noqdo waxaa yimid doorashadii teeramkii labaad imika waxaan u malaynaya waxa lagu jiraa waa teeramkii lixaad waa golihii baarlamaanka federaal iyo kelbe ee lixaad imika laakiin kii labaad markii la joogo baa waxa xisbigu ii gartay inaan noqdo musharax xildhibaan federaalka oo Jigjigada labaad laga doorto sidaasaan Jigjigada labaad markaa xildhibaan federaal u noqdo haddii aan xusno aan macnaha ereyga u dambeeya markaad sheegtay Jigjigada labaad sidee kala ahaan jirtay bal inaad dadka aad u bayaamiso daawadayaasha ayaan jeclahay horta gebi ahaan kililka kilimirja waxa la yidhaahdo aag doorasho ayaa loo qaybiyey marka Jigjigada koowaad iyo Jigjigada labaad degmada Jigjiga ahayd waa 2 xildhibaan oo federaala iyo 10 xildhibaan oo heer kilil ay ahayd marka wadadan weyn ay Jigjiga kala dhaxmartay imika oo marka qabalaha shanaad iyo qabalaha lixaad iyo wixii ka dambeeyay waqooyi ayaa Jigjigada labaad loo oranayay oo xildhibaan federaal iyo 5 xildhibaan oo heer kilil bay lahayd Jigjigada koowaadna wadada wixii xagga ka qabalaha magaalada markaan kaaga tilmaamo qabalaha koowaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad iyo wixii ka dambeeya ee baadiyaha ayaa iyaguna Jigjigada koowaad ahaa 1 xildhibaan oo federaal iyo 5 xildhibaan oo heer kilil bay lahayd marka xildhibaanadii federaalka dastuurka markii la ansixinayna sidii lagu doortay ahayd xildhibaanadii federaalka ee waqtiga dastuurka la ansixinay Jigjigada koowaad iyo Jigjigada labaad la keenay deegaan ahaan dhinac ayagan waxa matalayay Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Axmed oo imika jooga ayaa ragii dastuurka Jigjiga u soo ansixiyay dhinaca Shama Ali Cabdi buu ahaa teeramkii markaa labaad aan anigu soo galay labadii xildhibaan ee Jigjiga laga doortay gobolka Jigjiga guud ahaan 4 xildhibaan buu lahaa kilimirjaaga oo bare oo xildhibaan lahaa kilimirjaha oo qabri bayax oo isaguna 1 xildhibaan lahaa oo Dr. Cabdimajid ahaa xagan oo barana Shamsuddin Axmed buu ahaa xagana anoo Zakariya Cabdiya ayaa ahaa Jigjigada labaad oo inta matasha marka xagan galbeedka loo kaco muddi jinacsan marka dhaafto
jirima meel ilaa marka laga soo celiyo ilaa Haroreys inta u dhaxaysa ilaa magaaladan oo labada qabaleeya xildhibaanka wakiilka ka anigu sidaas ay ahayd haddaan ku kala saaro kilmirjaha labaad iyo kilmirjaha koobaad maadaama tirada degmada Jigjiga ay badneyd laba xildhibaan oo federaal bay lahayd golihii maxaan ku ka tirsanayd ee baarlamaanka ee federaalka waqtigaasi ee xukuumadii tib maxaa wada EPRDF ama TPLF aan bal waxa aad bariyaas aad u qabateen deegaanka ama aad uga soo shaqeyseen maxaa kamid ah ama aad ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa bilxaqiiqa anigu xildhibaan federaal oo deegaanka matala ayaan 23 xildhibaan baan kamid ah waxa jira gudiye joogta oo waqtiga baarlamaanku uu leeyahay oo ilaa 13 gudiya gudiga marka xisbiyada ayaa magacaab jiray cidda noqonaysa Dr. Cabdilmajiid uu naga tagay bay ahayd Maxamuud Dirir oo gudoomiye ahaa oo baarlamaanka nugula jiray federaalka isla markaana wasiir ahaa baa wuxuu ii doortay xubnihii Soomaalida xaggooda u matalay gudiyada joogtada galay ana markaa waxaan ka mid noqday gudiga joogtada ee Akem Gumbata ama capacity building kobcinta aqoonta ayaan xogaye ka noqday gudigaasaan intii aan joogay ka shaqeynayay gudigaas intii aan joogay waxyaabaha waa qabatay aan islaahay in qabanay rag badan oo haddaba jooga sida Cabdiwaasac Bilow kale isaguna gudiga arrimaha bulshadu ka mid ahaa Cabdicaziis Axmed oo imika inuu safiir yahay baan jeclahay isaguna gudiga sharciyada gudoomiye ku ahaa Cabdikariin Awraali isaguna gudiga arbitradorka ama xoolo dhaqatada reer guuraaga xoolo dhaqatada isaguna gudoomiye ka ahaa laba gudi xogayaal baanu ka ahayn oo Axmed Ugaas Faatuulo isaguna gudiga budgetka iyo miisaaniyada xogaye ka ahaa iyo anigoo gudigan capacity building ka xogaye ka ahaa iyo laba gudoomiye oo gudiga sharciyada iyo gudiga xoolo dhaqatada arbitradorka leeyahay Cabdikariin Awraali iyo Cabdicaziis Axmed ay gudoomiyaal nooga ahayn xubnaha kalena ay xubno ka ahayn gudiyada kale 13 gudi waan ku jirnay oran kara marka xilliga scholarship yaa jiray gudigan anigu markaa galay xilliyadii naga horeeyay aanay kililka Soomaaliya iyo deegaankeenu aanay ka warhaynin sida loo qaybiyo waxyaabo marka aan qabanay waxay ka mid ahaa inaan scholarshipkii ana hal la qaybiyo oo deegaanka Soomaaliya wuxuu ku yeelayo maxay tahay waxaanu helay inaan scholarshipkii marka qaybta uu kililka Soomaaliya ku leeyahay aan hoos u dhaadhicino kililka u dhaadhicino anagoo gudoomiyahayagii iyo intay gudiga isla kaashadeen waxaan suuro gelinay tiraba 5 qof oo scholarship dibadda marka la helay Yurub sida Ingiriiska iyo Norway iyo Holland in naga siiyo sidii baan u soo dhaadhicin marka waxyaabo qabateen yaa waxa sabab islaada iyo waxyaabo kale marka adaan ku xusay yaa kamid ah dhalinyarada scholarshipka ka faa'iideystay Axmed Shidaha maanta wasiirka ayaa kamid ahaa Bashir Cabdilaahi Ciidaruus baa kamid ahaa Daawud oo isaguna madaxweyne soo maray ayaa kamid ahaa civil service oo kale waxay civil service-ka jaamacadaas shaqaalaha dawladda ayaa gali jiray oo lacag laga goyn jiray waxaanu ku doodnay maadaama kiladii holaaqariga looranay oo kilka Soomaalida iyo Canfarta iyo Benishaangul iyo Gambeele iyo Hareero ay kamid ahaayeen inaan shaqaale badan oo lacagta laga bixiyo aanay jirin laakiin dhalinyaro waxbarashadooda asaasiga soo dhameystay oo diyaar u ah loona baahan yahay xoog waxbartay oo kiladii wax ka qabta dib u dhacay inaan 180 u qaybino 5 kilil ayaan suuro gelinay oo civil service-ka iyagoon shaqaale dawladeed ahayn la geliyo taasina waxaan qabanay oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya ay ka faa'iideysto oo maanta waa mas'uuliyiin ka deegaanka waxyaabiyaanu qabanay bay kamid ah
waxaa jirtay madaxweynaha deegaanka imika ah Mustafa Maxamed Cumar waqtiguu mucaaradka ahaa waxaa jirtay qoraal oo qoray oo ku xusay adiga oo Xildhibaan Sakariye ah oo nin la oran jiray rajijiga ahaa in uu gamagameeyay Mustafa waayishi deegaanka ninka aqoon ma u lahayd waqtigaas Mustafa maxaa ka xasuutaa si fiican waan xasuustaa qiimeyn gamgama macnuu waa qiimeyn la qiimeynayay muwaaqirkii qaab dhismeedkii dawladda dhisnaa ee xisbigu uu hogaaminayay xisbiga shacbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya aanu ahayn guddigiisa fulinta qiimeyn guud oo xisbiga la qiimeynayay xubnaha xisbiga ee golo dhex iyo fulin iyo xubnaba ka iyo dawladdiisaba la qiimeynayay bay ahayd Mustafa sidoo u dhigay waa runtii qiimeyn baanu samaynay qiimeyntaas waxa ku soo hagaagay aniga iyo madaxweyne ku-xigeenkii waqtiga oo Cabdirashiid ahaa Cabdi Jibriil baa waxaan ku qornayn unug xisbiyeedka heerkalna wuxuu ahaa wasiirada iyo ku-xigeenada iyo agaasimayaasha iyo wakaaladaha hay'adaha kale ee ka jira heerkal Mustafa waxaan u maleynayaa waqtiga haddaan qaldanayn inuu ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada waliba inuu wasiir ku-xigeen ku magacaabnaa baan jeclahay baanu qiimeyn ku samayn qiimeynta markaa waxaanu ka qiimeynaynay nabadgelyada musuqa qabyaaladda iyo maamulka suuqa marka lagu helo inuu qodobada mid ka mid uu ku jiro talaaba la qaaday Mustafa waqtigaas ay jirtay inaan qiimeynta waan xasuustaa aan qiimeynta marka raggii sameeyay ani Cabdi Jibriil baan ahayn unug xisbiyeedkaan ku qornaa anaana qiimeeyay 12 xubnood oo agaasimayaal wasiiro iyo ku-xigeen leebaan talaaba kaga qaadnay oo ku sifoobay qodobada marka la qiimeeyo mas'uulkaas waxa loo kala qaadaya 3 qayb qiimeyntii wuu saxmayaa mataarami jaalal iyo ma saxmayo ee talaabaha la qaado iyo ma waxba waa lagu waayay Mustafa wuxuu ka mid ahaa xubnihii aanu aragnay inay saxmayaan qiimeynta lagu sameeyay in markaa la geeyo kiita ayda dugsiga tababarka kuleeshka tababarka macallimiinta inuu mas'uul ka noqdo xilligaa waan xasuustaa sidaas ahayd baan jeclahay waa si wanaagsan waxaa jirta imika isagaa deegaanka ka taliya oo maanta madaxweyne ka ah waxaana jirta gobollo iyo degmooyin imika toddobaadka u dambeeyay la soo cusboonaysiiyay ama lagu daray deegaanka qaab dhismeed cusub lagu sameeyay bal maxaad kale adigu fikir ahaantaada maxaa leedahay way soo kordhin karaan anigu wax badan bay soo kordhin karaan baan leh run ahaantii waqtiga aan qiimeeyay baa aniga isugu kahay dambeysay muddo ismaan arag anigu imika 10 sano baaban ka maqnaa saaxadda Mustafa waqtigaana horta qabiil ma lahayn oo qiimeyntaan qiimeynayna dadka aanu ku weynay qabyaaladda ayuu ahaa hase ahaatee waxaan u arkaa inuu wax wanaagsan isagii xukuumaddiisuba ay soo kordhiyeen oo wax weyn ka taraya midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo wadajirka wuxuu daweynayaa waqtigii kililka aasaaskiisa ahayd dhaawacii gaadhay shacabkii deegaanka xuduudda ku jiro kale 12 degmo ayaa baarlamaankooga EPRF ay diiday inay kililka Soomaalida noqdaan 12kii degmo ayay ahayd meelaha nimka xuduudda iyadoo 15 goobood waqtigaas muranku ka jiray oo baarlamaankii laga soo doortay 36 xildhibaan ayaa laga reebay baarlamaankii kililka xilliga ee goday tag jiray meelihii loo diiday xildhibaanada laga reebay bay u badan marka xuduudda leeyahay taasi waxay dhaawacday
inay sababto inay kililka Oromiya ama kililada deriska ay shacabkaas ay u galaan oo afti la qaado aftidaasna ay keento mar hadday xuquuqdii kililka ka waayeen inay dhinac kale u kacaan bay sababtay tiibay dawow tahay baan leh oo midnimo ummad Soomaaliyeed bay dhalinaysaa waana soo dhaweynaya waxa jirta gaar ahaan degmada Biida oo degmooyinka cusub degmo kamid ah ahlan magaalada Charla dabcan saad sheegtayna xuduudaha kamid ah maxaad ugu baaqaysaa dadka degmadaas degan iyo agaarkeedii adoo ka soo jeedo waliba horta waa halkan ka soo jeeday la igana dooranay xaqiiqan horta mid in la fahmaa fiican Biida Jinacsani Tulli Haroreys Shabeelay intuba degmada Jigjiga kamid ahaa waqtigii hore ee annagabana laga dooranayay inkastoo muranka ay xisbigii Oromadu uu qabay ama dawladii OPDO markaa dhisnayd ay qabeen meel muran ku jira haddana degmada Jigjiga si loo xaliyay baa jirtay bay kamid tahay Biidu inay fahmaan baan jeclay dadka aniga aan ka soo jeedo iyo ummadda kaleba waqtiga muranka kuma jirin 12 degmo aftida la qaadayay Biida iyo Jigjiga iyo Jinacsani iyo area-gan sababtu waxay ahayd 12 degmo in ka baxsan bay oo maamulo gobolada hoose ka jiray Harargee iyo gobolkeena Faafan ay dana gaar ka lahaayeen baan oran karnaa oo nimankii TPLF dabada ka wadeen si markaa dadkani aanay mid u sii noqon degmada Jigjiga maadaama ay Jinacsani markii aftida la qaaday Jinacsani ayaa lagu soo daray oo 84 qabale ah deegaankan banka 84 ka qabale oo aftida ku jirin ayaa lagu soo daray 46 qabale oo reeraha maanta dhibaatadu ay ka dhacday ee walaalaha isku abtiga ay soo dharay oo aad uga xumahay runtii inay saas wax u dhacaan ay wada degaan 46ka Oromiya raacayna way ku wada jiraan way soo ku kala badan yihiin 38ka Soomaalida soo raacay Soomaalida doortay aftida ku doortayna ha ku kala bataane way wada degan yihiin Biidu waxay ka mid tahay 38kii soo doortay kilka deegaanka Soomaalida sharciyanna waxay u tahay kilka Soomaalida kilka Soomaalida ama santara ka dhigto ama qabaleha u ahaato ama degmaha u ahaato ama gobol ha u noqotay isaga ku xaqlay sidii ay Oromiya 46kii qabale oo makanis ka mid ahay oo marar ka mid ahay ay iyagu waxay rabaan uga samaysteen kilka Soomaalida xaq buu leeyahay inuu ka sameeyo marka dadka goorta taa inay fahmaan sharciyan ya sharciyan horta waa sida ileen dawlad baynu ku jirnaa oo ka midna dad banaan joogo bila dawladda min ma fahanta aqligu ha shaqeeyaan leh waxa jirta takale sidaad sheegtayba dadka ka soo jeedo Biida iyo Jinacsani laba deegaan u kala jiraan dadka qaar baa qoraya inay tahay waxyaabo khiyaamo ah degmadana ma waxyaabo noocaas ah oo waxyaabo yar dhinaca ku rarno ma colaad abuuri karo labada shacab ee wada dhashay isku beesha ah maxaad ka leedahay dadkaas maxaad soo baaq u tiri lahayd maadaama tahay aqoonyahanka kalaan u arkaa dhibaatadii dhacday dawow tahay ban leh dhibaatadii iyo dagaaladii dadka walaalaha dhex maray bay dawow tahay wax dagaal oo ka iman kara iyo wax mushkilo ka iman kara ma jiro waayo dadku maamul bay doonayeen deganaanshiyo nabad bay rabaan dad dan lahaa iyo xukuumadda dan lahaa baa waxaan geliyay wax qoomiyadoo la isku hayaana ma jirto waxa war anigu asmaamulo iyo anu asmaamulo marka anigu waxaan qabaa siday dadkaas u arkaan maahine anigu nabad inay ka dhalanayso nabadii hore soo noqonayso baaban u arkaa degmadan Biida la siiyay waa sidaa weyn waxaan ku afmeeraynaa halkaasi barnaamijkeenii way arag oo marti noogu ahaa Sakariya oo ahaa xildhibaan hore ka tirsanaa golaha federaalka Itoobiya ee guddiyoyin kala duwan ka soo shaqeeyay deegaankana xilal aad badan soo qabtay
kulanti wacan wanaagsan dambe aad baad u mahadsantay هذا من